السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو dhawaa kan doonaya inuu kaga soo gudbiyo casharadii taxanaha ahaa mid ka mid ah casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay horey sidaad maaragtay nala socotay waxaan configuration ku sameynay qaybtan oo aad arkaysaan nabadooda labadan router iyo labadan switch iyo labadan computer waxaan habeynay dabcan IP addressada configuration iyo maaragtay kula habeynay marka waa wada shaqeynayeen markii ugu dambeysay bin garaynay hadda waxaan doonaynaa inaan maaragtay idiin soo gudbiyo kumandayaasha ma wada dhammaantood ma aha laakiin qayb kamid aan idiin soo gudbinaya hadda lagu ogaado troubleshootka lagu sameeyo halka ciladu maaragtay ay kaga jirto inkastoo aan dareemayno tan qaybahan inaysan xaalada ku jirin hase yeeshee way habboonta inaad ogaataan kumandayaashaas la isticmaalayo haddaan ku bilowno qaybta ugu horeysa haddaan terminalka tagno oo aan gudaha u galno routerka waxaan fiirinaynaa koondaha ugu horeeya waxaan leenahay show front sida hore kuu sheegay waa soo gaabsi kartaa haddaad doonaysa inaad dhamaystirto computer ka dhigatana taabkii ayaad taabanaysaa uu computer kaga dhigaya haddii aan doonaynana waxaan kusoo gaabsan karnaa intaas kusoo gaabsan karnaa showra waa isku mid wayaan marka qaybta ugu horeysa haddaan aga fiirino waxaan halkan ku arki karnaa IP addressadii aan soo configure garaynay ayaan halkan ku arki karnaa kan ugu horeeya waxaad dareemaysaa fast ethernet 0/0 waa halkaas intiina la socotay markaan sameynayno configurationka marka dabcan waxaan configurationka kula sameynay waa IP addresskan oo aad jeedaan oo glacier ah 192.168.255.255.255.0 oo subnamaskiga ah marka computerkan default gatewayga aan ku habeynay waxaan yidhaahna waa inaan u sheegnaa saxbaarna ku sameeyaa routerkaasaan ku configurayna marka qaybtiisaan aan ku configuraynay 0/0gaas aan fast ethernetka ah marka haddii aad si qaldan bilmetal aad configuration u samaysid commandahana isticmaalaysaa si aad ugu eegto ama aad u fiirso troubleshoot ugu sameyso waxyaa qaldan qaybtan maya qaybta kale aad u gudbaysaa oo xigta oo aan configuration ku sameyn serialkaas ah oo ah serial/0/0/0ga ah IP addresskana aan gelinana waa kaas intiina la socotay waad eegaysaa maxaa ka qaldan haddii maaragtay wax qaldan yihiin halkaasaad maaragtay aad ka ogaanaysaa hadduu shutdown yahay sida hadda kan oo kale kan ma aanaan configurayn marka haddii routerka lagu sii xiro oo kale ayaa maaragtay laakiin ma aanaan soconayna kaasaan soconayna meeshaan ma ujeedaan wax shutdown kuma jirto waa up marka halkaasaad ka ogaanaysaan haddii wax maaragtay dabcan ay jiraan cilado ah tusaale waa kan protocolkaan isticmaalnay oo version 2 ah oo ahay version 2 ah waa kana marka IP addressadii qaabsan aan kusoo habeynay haddii aan kaga gudubno qaybtaas halkan aan ku dhaafno waan u gudno computerkan aan ka galno terminalka routerkana u gudbayna showgan arkii xataa aan isku soo gaabsan karnaa
okay waxaad halkan ku aragtaan waa isla hadda qaybta maaragta qaybtan kale waaye oo 0/0-ga ah IP address-kana waa default gateway-ga aan maaragta computer-ka ku hadalnay si aan ugu sheegno xambaar ugu sameeyo router-kaas sidaan hore usoo sheegaba marka waxaan halkan ku aragnaa serialkan 0/0/0 oo aan IP address-kaas aan kusoo habeynay oo qaybtaas ah serialka haddaan arkeyno waa qaybtaas marka qaybtan wuxuu ka wataa sidaan hore usoo aragnayba waan kugu sharaxay waad arkaysaan xoogaasoo ka wataa waxaan configuration kusoo sameeyay tusaale cillad hadday ka jirto aanan ku sameynin configuration log raidkaas waxaan ogaanay oo aan idin tusay shayna haddaad u raacdaan in wax shaqeynaysa jirin oosan pingraysmaynin laba router arkeynin waayo waxaa ka maqan configurationkan dhamaystirnayn marka qayb kamid ah maqnaanaysa marka waatan habeenay kadibna aan maaragta pingrayna haddaan qaybtaas halkaas ku dhaafno intraad leedahay si aad mar usoo space aad leedahay si aad mar usii aragto marka waa isla qaybtii aan soo aragnay marka markaas protocolka wata waa rib haddii marka aan qaladaad ku jiro halkan baad fiirinaysa bilmata IP address-ka hadaad iska gashta halkan oo aad kuwana ka tagto kana meeshaad 4 ka dhigtay 3 meeshana waxaad ka dhigtay 5 marka waxa waaye dabcan protocolkii qaybtii loogu talagalay maaragtay ma aadan saxin qaybta kaleetana waa saxday laakiin qaybtana ka qalday siyaabahaas aad ku ogaanaysaa marka oo kumandahan ku fiican wax maaragtay u kala saarto okay haddaan kaas halkaas ku dhaafno waan u gudubno kumandaha labaad waxaan leenahay show oo IP ayaan leenahay protocol soo gaabsi kartaa qaybtan waxaad taabanaysaa taafkiga taabanaysaa kudoda ku dhigaya okay qaybtan waxaad ku ogaanaysaa protocolkaas maxaa layso nooca uu yahay waa router adnamsa protocolka waa rib halkaas marka waxaad maaragtay sending update-ka uu sameeyey every 30 second ayuu sameynayaa marka halkan waad dareemaysaan waa 13 seconds ayuu maaragtay invalid kiisana waa kaas halkaasaad maaragta ka ogaanaysaa hold down-kana waa kaas marka halkaasaad ka ogaanaysaa qaybaan waxay aad muhiim ugu sii yihiin dabcan marka aad sameynaysid inaad sii barato waa habboon tahay markii aad sameynaysid macnaha CNA-ga oo waa kumandayaasha aad usii baahan tahay haddaad iswahay hadda ku maaragtay aad usii baranaysaana aan kuu soo gudbinayo marka aaday muhiim u tahay inaad maaragtay kumandaha sidiisa aad u xafido maasha allah soomaalida maaragtay waa xafidada aada maaragtay maasha allah ugu fiicannahay marka waa wax walbaa meel inaad ku qortaa ama aad maaragtay aad note ku samaystaa meel ku qortaa way habboonta laakiin waxaa fiican inaad xafidaa inta meesha ku qoran yihiin waa intaad xafidaysaa taaseed maskaxda ku qaado wax walba marka imtixaanaad sameynaysid waxaa waaye waad dareemaysaan waa nin walba maskaxdiisa Soomaaliya marka komanda hadduu ku gooyado waxaa waaye qaybtaas shaqo ku noqonaysa qaybtaas u sii jirtaa komandayaasha qaar qaybtaas u jirtaa waa ku adkaanaysa marka kuwa kale xasuusataa qayb kamid ah shaqo ku noqotaa dhibkeeda leedahay marka waxaa iga dardaaranahayna maaragtay qof walbaaba uu isku hadlayo awoodda ilaahay uu siiyey kuna xamdiyo maskaxdaas maaragtay malaayiinka qaadaysa maasha allah okay halkan markaa maanta waa kana halkan waxaad ka dareemaysaan waan soo aragnay
intaan usii gudbin halkaas waa interface-yada waxa uu diray iyo waxa uu helay ayaad maaragtay halkan ku ogaanaysaa aad ka gaaraysaa. Marka qaybtaana waa serialada iyo fast internetka la isticmaalay interface-yada la isticmaalay waaye. fast internetka la isticmaalay iyo serialka la isticmaalay, qaybta uu diray iyo qaybta uu helay. Okay, waxaa la yidhahdaa maximum path ka ama qaybta uu maaragtay ka gudbo ama ka gudbayo waxaa waaye 4 uu gudbiyey aan leeyahay. Marka qaybtan IP address-kan waa dareemaysaan waa labadii hadda soo arkaynay oo ku soo habeenay maaragtay routerkan ku arkaysay oo uu xambaar ku sameynayay protocolka RIP la yiraahdo. Marka halkaas aad idana ka ogaan kartaa. Okay, haddaan u gudubno qaybtan oo maaragtay passive interfaces-kan ama interface-ka aan soo guda galno gateway-ga oo halkaas qaybaha maaragtay oo ka gudbinayo. Qaybta waa qaybta routerka IP address-ka aan router ku soo habeyno waaye. Marka distance-gan waa muhiim 120 waa muhiim. waxaa iska leh RIP protocolkaas iska leh. qaybo kaleetana gudbi doonaa haddii la arki doonaa. Marka sidiisa ayaa ku habboon inaad u qabato oo aad ogaato RIP distance-ga uu leeyahay muxuu yahay 120 isla markiina maskaxda soo tuftaan rabaa. marka waxa waaye dabcan qaybtan haddaan ka gudno waa default-giisa waa 120 saas maskaxda u qabanaysa haddii la yidhaahdo. marka distance-ga uu kaga maaragtay tahay waa 120 kaas distance-ga saas maaragtay u qabanaysa haddii la yidhaahdo. qaybta haddaan halkaas ku dhaafno dabcan waan u gudubno kawaandaha xiga. waxay haddaan routerkaas hadda aan maaragtay isla kawaandahan aan ku fiirino aan isla eegno dabcan show IP protocol show IP protocol waa dareemaysaan waxaan halkaa ku haynaa IP address-ahaas kii hore meeshaan 3 aan ku aragnay oo qaybta ku habeynay computerkaas kale IP routerkaas kale. qaybtan kaleetana waxaan maaragtay aan ku habeynay marka isla intii baan ku arkaynaa waa 120 waaye isu protocol maaragtay laba protocol waana haben waa hal protocol oo isticmaalaya. marka waa muhiim inaan sidaa ogaano haddii la yidhaahdo. haddaan u gudubno marka kan xiga waxaan leenahay show oo kawaandaha xiga. haddaan soo maaragtay gaabsano waxaan leenahay show int oo interface u taagan CS oo u taagan serialka aan 0/0/0 haddaan idhaahno waxaa halkaan ku arki kartaa. marka qaybtan waxay aad muhiim ugu sii tahay up iyo down waa sii kala arkaysaa. hadduu kan up ku yahay line protocol-kuna uu up yahay inverter protocol-ka haddii uu qaldan yahay oo kaleeto down markaa noqono. marka haddii uu up yahay waxaa waaye qaybtan waa kasii soconaysaa. qaybahan marka waxaa waaye aad waxay muhiim u yihiin maaragtay dabcan aad sii ogaataan CCNP igana aad muhiim u yihiin waayo configuration lagu sameynayaa. marka kolley markaan imtixaanaadkooda gelayay configuration lagu sameeyaa hadda dib umaana fiirin. marka configuration lagu sameeyaa taasna waa CCNP-ga. marka ayuuna aad muhiim u tahay maaragtay aad sii ogaataan. marka si fiican isha sii mariya maaragtay reliability-ga waad arkaysaa. marka qaybahaasna sidaas maaragtay la soconaysa haddii la yidhaahdo.
طبعا sii fiirfiiriya isha sii mariya waa dabcan qaybta maaragtay waxaan ugu deynaa kumandaha kale ugu deynaa haddii la yidhaahdo marka haddaan kumandaha kale ugu deyno show ip root intaa ugu soo gaabisto okay waaye marka show ip rootka haddaad maaragtay qaybta haddaad fiirino c waxa waaye directly connected wuxuu kaga xiran yahay serialkaas uu kaga xiran yahay ip adresska aan gelinana waa soo aragnay marka qaybtan waa c saan hore u sheegnay ip adresskiisa maxaa la yidhahdaa /24 marka qaybtan wuxuu kaga xiran yahay fast internet uu kaga xiran yahay oo tuuga maaragtay okay si directly connected waa isagana qaybtan waxaan halkaa ku aragnaa protocolkii distancega aan soo arkaynay 120 ayuu ahaa wuxuu qaybtan oo kaga dusayaa ama kaga baxayaa waa kaas waxaa weeyaan 1.2 ayuu kaga sii dusayaa oo routerkeeta ah oo serialkaas ah ayuu kaga dusayaa haddii aan isla aragno waa kaas iyo kaas macnaha kan uu ka dusayaa maaragta usoo gudbayaa oo ka gudbayaa marka qaybtan waxaan ku soo aragnaa in computerkan oo maaragtay ku jiro defaultgeeda aan ku soo aragnayna waa 3.1 inuu ahay marka wuxuu marka soo marayaa serialkaas uu kasoo gudbayaa okay isla haddaan tagno dabcan kan haddaan tagno isagana aan maaragtay bilahno show ip show dalana ip root wuxuu ku tusayaa kan isagana directly fast internetka directly connected waa kan wuxuu ku tusayaa waad dareemaysaan serialkaas uu ku tusayaa kaleeto oo maaragtay routerkan ku xiran ayuu maaragtay ka tusayaa isagana oo marayaa marka labadana waxaa waaye sidana waxaa waaye directly connected waaye marka kan waxaan dabcan kusoo configuration kusoo sameynay waa computerkan marka qaybtan iyo qaybtaas ay isaga tusayaan okay qaybtaas halkaas aan kaga gudubno kulantaheena xiga waxaan ka dhiganaynaa dabcan troubleshoot ma ahan kumandahan marka waxaan ka dhigaynaa haddii la yidhaahdo waa ugu doonaa kumandayaasha kale noo soo socda marka qaybaan u qaban doonaa haddii la yidhaahdo kumandahan sidaan hore kuu sheegaba waa la yidhaahdo waan samayn doonaa waxaan bilmatal ku aragnay haddii kumanda qaldan aad kaaga dhaca gacanta tusaale iska taabatay gacanta kaaga dhacday okay aad ku tiraahday interaad ku tiraahday isla markiiba waxaad aragtaa meeshaan translator uu ku sameynayo oo uu haysto kumandayaashii saxda ahay mid ka mid ah marka qaybtaas domain serverka oo maaragtay dabcan qaybtaas raadinuu sameynaa wuxuu kaa qaadanaa adiga midintuu kaa qaadanaa marka
waxaa la iska sameeyaa dabcan dad configuration waddo kaleeto waxaa la iska sameeyaa qaybtaas waa hal command maaragtay la iskaga habeeyaa oo bacdeen hawshaada la iska qabsadaa. haddii aadan sidaas sameynin waxaa waaye waa inaad break ku dul qaadataa oo iska sugtaa sida hadda arkaysa. marka kaasaan ku darayna haddii la yidhaahdo waxaan leenahay marka commandahan gelinayna haddii la yidhaahdo waxaad leedahay no ipa domain markaad no ipa domain tiraahdo waxaad leedahay look intaasaad maaragtaad ku habeynaysaa. bacdeen haddaan control sab niraahno dib u laabano tusaale isla kii taabanaa keyaan leeyahay waxaa laleeyahay waa markii waxba hadda daqiiqado raadinaya ama maaragtay iskana raadinaya ma jirto isla markii waxaa laleeyahay commandahan maaragtay waa unknown commander buu leeyahay masha Allah commandahan maaragtay la garanay maaha. marka maanta waxaan kusoo koobayaa casharadana halkaasaan kusoo koobayaa qaybtaas. haddii la yidhaahdo waxaa inoo xigi doonaa casharada kale insha Allah noo soo socdo taxanaha noo ah haddii la yidhaahdo si aan ugu sii maaragtay waxaan ku jirnaa qalab qaadasho maaragtay dabcan xagga CCNA-ga iyo CCNB-ga insha Allah. marka tan iyo casharadana xiga waa lowdack oo markale leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.